Bismillahirrahmanirrahim warka aad ku maqli doontiin bogga Runugood Media iyo YouTube-ka Runugood Media waxaa ka mid ah xoolihii ugu badnaay ee degmada Runugood ee gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa ka soo hayaam halkaas iyo koona ku sugan degmada Cadale ee isla gobolka Shabeellaha Dhexe. dadka degmada Runugood ayaa u sheegay bogga Runugood Media in halkaasi abaar ka jira maantana ay beerhoori wax ka soo goosan. wasiirka arrimaha dibadda ee waddanka Ruushka oo maanta eedeyn kulul u jeediyay waddanka Turkiga oo dagaalo ka wada dalka Liibiya oo Ruushkuna kula jiro halkaasi. dowladda Kenya ayaa ka baqdin qabta ciidamada Jamhuuriyadda Soomaaliya oo ku sugan xuduud beenaadka ee gobolka Gadow ay halkaasi ka joogaan ciidamada Soomaalida. dhammaan madaxda maamul goboleedyada oo dhammaan la kulmay xildhibaanada ku metela dowladda dhexe si ay u hirgeliyaan heshiiska madaxweyne Farmaajo ay la gaareen caawa horaato. Turkiga oo sheegay inuu qaadan doono wiil Soomaaliyeed oo ku nool gobolka Buuhoodle halkaasi oo ku soo bandhigay metelaad u eg diyaarada miigaga ah. Turkiga oo ballan qaaday wiilkaas inuu ka caawin doono sida uu u horumari lahaa fikirkiisa wanaagsan. maamulka Somaliland ayaa markii ugu horeysay taageero u muujiyay ra'iisul wasaaraha magacaaban ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya koona ku sheegay inuu yahay nin wanaagsan oo deegaanadooda ka shaqeyn jira ayna filayaan inuu wax badan ka qaban doono wadahadaladii iyo dhammaan howlaha isku cakiran ee u dhaxeeya maamulka iyo dowladda Federaalka Soomaaliya. warkii caawa halkaas ayuu ku egyahay. beedka share dhaha YouTube-ka booqda subscribe saara si aad noo dhiirigelisiin waxaan wararka ugu badan u wareeji doonaa YouTube-ka si halkaas ay u bataan saaxiibada soo booqaday. waana ku mahadsantihiin intii warkaan dhageysata asxaabta sharafta.